ونكسر عيدا asalaamullaahi calaykum kulanti waxaan daawadeer idin hantiinba meelood baad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada shabkada caalamiga ah codka dunia.com iyo barnaamijka salaamaha ciida taa oo aan ku eegi doono sidii looga ciiday wadanka Sweden. kumanaan muslimiin ah ayaa maanta waxay isugu soo baxeen magaalada Nyköping dalka Sweden kuwa oo meel ku wada dukaday hal meelna ku wada qaatay farxadda ciida. kumanaankaasi muslimiinta ah ayaa waxaa laga dhex arkayay Soomaali aad u tiro badan kuwa oo wajiyaalkooda ka muuqday farxad yareereen iyagoo isugu hambalyeynaya ereyada ay ka mid yihiin ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. waxaan mikrofoonka la dhex qaado oo aan jaanso siiyey dadweynaha Soomaaliyeed in ay salaan iyo hambalyo u diraan eheladooda asxaabtooda. mar kale kusoo dhawaada shabkada codka dunia.com iyo barnaamijka salaamaha ciida oo idin tabiyo anigoo ah Cumar Ismaan Xuseen Cumar Danuurshe. دوم بزيادة كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي وداني دندن وداني دانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaanu tukanay ilaahay fadligii ciidii ciidul adxaa waanu ku tukanay magaalada Nyköping ee wadanka Sweden. run ahaantii muslimiinta meel walba ay joogaan ayaan jecelahay inaan u taaniyadeeyo aan iraahdo taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. annaga idinka ba Allah inaga aqbalo cibaadada iyo taacada dadka ilaahay kacbadiisa joogay ee xajka gudanayana ilaahay subhanahu wa ta'ala xajkooda Allah ka aqbalo wadankeena Soomaaliyeed ee dhibaatada iyo musiibada ka taagan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado oo amniga iyo nabadgelyada Allah ku soo celiyo. run ahaantii maanta waa maalin farxadeed ma aha maalin laga sheekeeyo murugada laakiin si walba ay tahay wax qalbigaaga ku jira sina uma iloobaysid. marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa farxadan maanta aanu faraxsannahay inuu ilaahay murugada inahaysay wadankeennii iyo dadkeennii iyo muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin haysay inuu ilaahay nagaga dulqaado. waxaan u dardaarmayaa maanta oo kale inaan muslimiinta iscafiyaan waa isa saamaxaan oo dar ilaahay isku saamaxaan inay dadka isu naxariistaan inay dadku isjeclaadaan in dadku ay ogaadaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ula xisaabin doona maalinta la xisaabtami doono. sidaa darteed naftayda iyo naftiina waxaan idin dardaarmayaa walaalayaal ilaahay dartiisu saamaxa oo problemaadka iyo khilaafaadka xalliya oo aytaamta iyo kuwa ilmaha agoontana ka warhaya oo jaarka xaqiisa ilaaliya khaasatan dadka ku nool Yurub iyo Mareykanka iyo Australia ee ku nool wadamadan Westernka waxaan oranayaa iyaguna war diintiina haysta oo ilaahayna ku xidhma oo diinta lagu cizoobaya diinta sharaf lagu gaaraya diinta ilaahay lagu dhawaanaya diinta meel lagu gaaraya diintiina haysta diintiina macaan ilaahay idin siiya hadda diintiina haysataan adduunyadiina iyo aakhiradiina ilaahay baa idin barakeynaya. marka diintiina haysta oo diintiina barta oo diintiina ku dhaqma. gabdhahana waxaan u dardaarmayaa inay xijaabka iyo ma garanaysaa salaada iyo khayrka iyo xishoodka ay ku dadaalaan. dhalinyaraduna waxaan u dardaarmayaa kubadda cagta iyo kubadaha la ciyaarayo inaysan cibaadada ilaahay idinka mashquulinin. waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii aad haysataan intaad isku ekaysiin lahaydeen ciyaaryahan iyo wax kubad ciyaaraya nabi maxamed isku ekaysiiya. odayaashana waxaan u dardaarmayaa war ilaahay ka baqay qabyaalada iska dhaafa ee fadhi ku dirarka iska dhaafa ee kala gogoynta ummadda iska daaya oo ka shaqeeya midnimada culimadana waxaan u dardaarmayaa culimooy ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku diinta idinku aaminay ilaahay idinku diinta idin siiyey ummaddan diinta sida ay tahay ugu sheega oo ma garanaysaa afkaartan iyo fikradahan iyo kooxaysiga diinta ka daaya
oo ummadda tusay inay dadku walaala yihiin way nabiga calayhi salaatu wassalaam sanadkan oo kale ama xaajatulwadaac dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa wakunuu cibaada allahi ikhwaana addoommada ilaahay oo walaala noqda dadka inaad kula dadaashaan sida ay walaalo u noqon lahaayeen isugu soo dhoweyn lahaydeen dadkuna waxay walaalo ku noqon karaan markay ilaahay dartii walaalo ku noqdaan ilaahay dartii markay walaalo ku noqdaan bay dadku walaalo noqonayaan laakiin si kale walaalo ku noqon maayaan ilaahay baa innama almu'minuuna ikhwa marka culummada ee minbarada saaran ee manaabirta saaran ee dadka la hadlaya waxaan leeyahay kalimaadkaad ku hadlaysaan ha noqdo kalimaad dadka isku soo dhoweeya oo dadka isjeclaysiiya ninka hadduu culimo yahay ahludiin yahay ahlu karam yahay qabyaalad iyo luuqad iyo gobol iyo midabaysi ilaahay subxaanahu wa tacala noloshiisa buu ka saaray dib ha ugu noqonina sidaasoo kale waxaan u dardaarmayaa madaxda waxaan idin leeyahay idinkuna ilahay shacabkaga baqa oo maanta xilkan aad ku dadaalaysaan u cararaysaan maalinta aakhira muruguu noqon doonaa nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi inakum lataxrisuuna alimaara wasatakuuna nadaamatan yowma alqiyaama maanta waxaad ku dadaalaysaan xil laakiin maalinta aakhira waxay noqon doontaa mid laga ooyo haddii maanta aad xilkiina ilaahay kaga baqataan ood ilaahay kaga xishootaan ilaahay darajo wanaagsan buu idiin siinaya oo ah maalinta aakhiro inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala taxta dilla carshi inaad fadhiisataan adduunyadan waxba male waa laga tegayaa maad aragteen qof la leeyahay kafantiisu jabha loogu sameeyo waxa loogu rudo ma jirto sidaa darteed qof walbow madaxa ummaddan iyo shacabkan ilaahay kaga boqo sidaasoo hadalka ugu dambeeya waxaan la hadlayaa waa waalidiinta hooyooyinka iyo aabbayaasha waxaan la idinkuna mas-uuliyad baa idiin saaran ubadkiina ilaahay kaga baqa ubadkiina diinta ku tarbiyeya diinta jeclaysiiya oo diinta ku tarbiyeeya oo khilaafka iyo muranka iyo buuqa iyo xoolo jacaylka iska daaya khaasatan kuwa yurub ku nool ee maraykanka ku nool ee kanada ku nool austraaliya ku nool ee westernka yimid waxaan leeyahay ilaahay ubadkiina kaga baqa oo gurigiina kaga baqa oona ogaada inuu ilaahay idin xisaabin doono maalinta aakhiro ilmaha diinta ku tarbiyeeya haddaad diinta ku tarbiyeysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin barakeynaya ilaahayna raallah idinka noqdo muslimiinta meel walba ay joogaan dhibta iyo dhibaatada allah ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waddankeennii soomaaliya ilaahay anagoo aaminiina mudma'iniina isagoo nabadgelyo taala allah inagu celiyo kuwii ku ciidan allah inaga yeelo sala allahuma calaa sayidina maxamed kusoo dhawaa shabkadda codka dunida ee barnaamijka salaamaha ciida waan ku dhowahay aad iyo aad umahadsantihiin shabakadda codka dunida waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan khaasatan ummadda muslimiinta ah waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikheer waxaan si qaas ah u salaamayaa hooyaday aan adduunka ugu jeclahay warqooyin maxamed iyo xaaskayga iyo walaalahay oo kala jooga Holland South Africa Soomaaliya iyo khaasatan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanan aadaan u salaamaa ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikheer saaxiibkay aadaan u salaamaa Cabdiraxmaan Cadaani iyo Axmed Nuur ayaa ciid wanaagsan kusoo dhawaa shabkadda codka dunida ee barnaamijka salaamaha ciida waa dhawahay walaal maaha markii koobaad ee aan salaanta ka gudbiyey ciiddii horena waynu saragnay marka koobaad waxaan salaamayaa janankiina oo ay aad u xiiseeyaanba dadka degan magaalada Nairobi codka dunida aad baan u salaamayaa iyo shaqaalaheeda meel kasta joogaan mar labaad waxaan salaamayaa dadweynaha horta islaamka ayaan salaamayaa islaamka oo dhan meel ay ku nool yihiin ummadda islaamka oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan Soomaalida mar saddexaad waxaan jeclahay inaan salaamo familygayga aan ilaado xaaskayga iyo carruurtayda ayaan iyaguna salaamayaa waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa iyaguna dadweynaha faraha badan leh ee degan magaalada Nairobi haddii aan dee israado tiriyo ma tirin karayo asxaabtayda dhammaan waan wada salaamayaa ha ugu horeeyo Caraale laba Caraale salaamaya waxaan si gaar ah u salaamayaa iyagana saaxiibadayda faraha badan ee kale magaalada jooga waxaan markii ciidii horena si gaar ah u salaamay haddana mar kale salaamaya culimada magaalada degan ayaan salaamayaa iyaga oo magaaladeenna ka dhigay nabad iyagoo wanaajiyey iyaga oo dadka oo dhan mideeyey iyadoo oo aanay magaaladeenna ka jirin wax la yiraahdo qabyaalad wax la yiraahdo reer hebel aad baan u salaamayaa haddii ay heli lahaayeen masaajid intan ka weyn wax ka weyn bay sameyn lahayn ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay masaajid ka weyn siiyo culimadeena magaalada aad baan u salaamayaa waan u ducaynayaa horumarkay wadaan waxaan kaloo salaamayaa dhalinyarada magaalada aadka u fara badan ee degan waxaan salaamayaa fowreerinka Soomaalida oo isna tilaabooyin fiican sameeyay isagoo oo shaqaaleeyay laba qof oo inoo shaqaaleeyay sanadkan aan rajaynayno inuu sanadka dambe ilaa 10 qof noo shaqaaleyn doono waxaan salaamayaa Umar Cafari laftiis oo noo furay fowreerin weyn oo aanu iskugu nimaadno oo aanu ku kaafayno cid kasta oo horumarka Soomaalida jecel waa soo dhaweynaa waxaan si gaar ah u salaamayaa Sayid iyo saaxiibkay
cumar yare oo iyagu ah nimanka dubayaasha ee aadka ugu faraha dhuudhuban leh howlahan ka qayb gala barnaamijkan aad iyo aadna waad u mahadsantihiin aad aad umahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamay ummadda muslimka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan inta ka soo waxaan ciid mubaarak u dirayaa familkayga meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay maanta oo maalin ciid tahay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto dal iyo dibadba halka ka soo waxaan salaamayaa familygayga dal iyo dibadba jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam bikhair كل عام وأنتم بخير meel kasto muslimka dhamaan ay joogaan waxaan leeyahay كل عام وأنتم بخير ciideeda kale ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo caafimaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa siidka dal nuurshe oo maaragtay juhdi geliyay Nishobin inay ka duubaan codad kala duwan oo ah in maaragtay xaafada barwaaqo lagu ciiday alxamdulillah roob baa noo da'ay si fiican baa u ciidnay ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaa leeyahay كل عام وأنتم بخير sanadkan kiisa xigana saanay si ka fiican ilaahay ha nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan mar aan booqday goobta loo yaqaano Trefn ee magaalada Nishobin ayaa waxay nahiga qabanayeen caruur hooyooyin aabbayaal iyo dhalinyaraba oo farxadda ciidda meel ku wada qaadanaya salaada ciid kadib caruurta ma haystaan goob gaar ah ay farxadooda ciidda ku qaataan balse waxaa u suura gashay inay farxadda ciidda ku qaataan kuna qadiyaan goob aad loo soo agaasimay waxaana wajiyaalkooda ka muuqday farxad yarareen بالعيد كن الكون الباس قلاده يا روعته فوق الفضاء والغمامي يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام بالعيد كن الكون يلبس قلادة يا روعته فوق الفضاء والغمام يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا لا daawadayaal waxaan soo soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijka salaamaha ciidda oo idin kugu talagashay shabkada codka dunia.com barnaamijkaasi aan ku eeginay qaabkii looga ciiday magaalada Nishobin ee dalka Sweden barnaamijkaasi oo idin soo tabanaya anigoo Ahmed Ismaan Xuseen Ahmed Danuurshe waxaa kaloo qayb ka qaatay soo saarista barnaamijka Maxamed Ismaan Xuseen intii aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام